بسم الله الرحمن الرحيم. واتي دورشدين oo dhamaatay iyada xadaafiirteedii waxay wadaba way noo dhamaatay alxamdulillah laakiin waxa badan oo ka digaynay ee durba ifafaalada soo baxaya waxa saaka airport soo ka dhoofay lagu xidhay oo laga celiyay nin kamid ah qurba joogii u yimi xisbiga ayaa amar qabasho airport loo dhigay waxa kale oo nagu maqaala dad kale liiskooda meesha yaala waxyaabahan ka digayna waa taa durba bilaabatay ninka waxa lagu haystaa buugii komishanka ka lumay oo saxaafadda soo dhigay buugu been abuuray ma ahayn komishanka xilkiisii uu ku fashilmay bay ahayd inay ceebtooda qarsadaan in maanta cid dacweeyaan ma ahayn xaq waxaan u lahayn maalinta buugaas suuqa soo galay buugta kala soo gashayba inaan ku adkaysano inaan komishanku hays casilo xaq baan u lahayn laakiin waxaanu siin nabadgelyada khalkhal gelina doorashadana ha khalkhalanina waanu kala xishoon inay maanta iyaga dacwoodaan oo yiraahdaan cid baan ugu been abuurtay horta waa ayaan daro waxay ahayd haddii maskaxdu shaqaynayso ninkii gobolka saaxil joogay ee buugtiisii ilaa 5 kar waayay inuu markii bas casile inay maanta iyaga daba socdaan ninkii buuga saxaafadda u seejeediyay ilaa waa wuxuu iyagu kulmiga hawshooda qabsan waayay dambi allayaal dambi ninkaas leeyahay ma jirto fadaxadoodu mudabada soo dhigun inay ceebtooda qarsadaan oo maanta yiraahdaan war mar haddii xisbigii naga daba tagi waayay uu buugaan ugu dacweyn waayay inuu inaan dacwoonin taasi waa taa waxa kaloo jira dad shiciba oo haddii gadoodaan dhagax wax ka badan sidana ma taayir meel ku gubaan ayaa rasaas nool la dhacay waxay ahayd in maanta gudi qaran la saaro oo cidii amarka bixisay laga daba tago isbitaalka international royal buu xanugu tagnaa caruur yar oo rasaas ku yaalaan inana madaxa kaga taalo inana dhabar kaga taalo inuu maanta taliyay ciidankii bileeska xukumayay ee mashaqada ciidankiisu geystay oo meel walba kaga hanjabo gacan biraan cod ku qabanayna waa ayaan daro waxa weeye aqoon daro weyn baa ka muuqata war masiibada ciidankaagu geystay baaritaan ku samee askariga dadka hoosta ugu dhigay yaa amarka siiyay dhiiga dadka yaa xalaaleeyay dhiiga shacabka yaa idin xalaaleeyay waxyaabo xisbigana doonay inuu bedelo taasa ka mid ahayd dad shacab oo rasaas oo la dhaco waxyaabahan uba soo galay siyaasadda ay ka mid ahayd in nidaamka caynkaas ee dhaqanka caynkaas ee nolosha dadku qiimo aanay lahayn ee ninkii bileeska ahaa amarka bixiyay shaashada isla soo taagayo gacan biraan wax ku qaban doona ee aanu gabanayn war waxaanu leenahay dalkan cagta loo dhigo aga juglayn iyo xarig iyo hanjabaad iyo caburin dadkan uu soo dhaafay dad lagu xukumi kara maaha waxaanu sheegayaa madaxweynaha loogu dhawaaqay yaanu bilowga ka xumaanay bilowga yaanu ka xumaanay dhaqamadii hore jiray ee lagu shaqayn jiray maanta adaa mas'uuliyadda leh wax ka bedel taliyaasha ciidamada shaashada soo fadhiisanaya shacabku hanjabayana yaana dib ugu soo noqonin in ciidanaadahay sarkaalka iyo jananka ciidanku inuu shacabku hanjabo maaha haddii cid hadlayso in wasaaradda arrimaha guduhu hadashaa isagu waa fuliye isagu siyaasadda dalka amniga gacanta kuma hayo siyaasadda amniga iyo qorsheynteeda waxa kule wasiirka leh taliyuhu waa fuliye inuu isagu halkaas soo fadhiisto ka hanjabo oo waliba taliyuhu ciidanka qaranku ka hanjabo madaxweynaha maanta loogu dhawaaqay waxaan u sheegaynaa dhaqamada waa dhaqamadan doonayna wax ka bedelo dhaqamadaasi kuwa u horeeyay wax ka bedeshaa noqoto haddii kale ku sii socoto siday ahaan jirtay waxaan kuu sheegayaa adii ummaddu 6 bilood isla gaari maysaan ma doonayna dalkan inuu khalkhal galo waxaanu doonaynaa dalkan inuu nabad helo waxaanu doonaynaa dalkan inuu badhaadho haddii laga bilaabo tallaabadii u horeysay dawladdaadu qaaday weli dawlad ma baad dhisina dee amarkaagu maanta adiga amar kale wasiirka madaxtooyadu ma laha taliya ciidankuna ma leh kuguma wareegin
laakiin saaday ishaarada ka qaadanayaan waagi markuu ku bariyay hadii laga bilaabo in taageerayaashii xisbiga la waarsado deewanu ka jawaabi doonaa ninka xukunka kursiga fadhiya isaga nin walba ka nugul jaanis baanu ku siinaynaa grace period ee xukuumadda bedeshaan ku siinaynaa waanu ku amaahinaynaa waqti annu ka aragno ifafaalahaaga waxaad ku tala gashaa inaan gacmo laabanayn oo in alliyaala intuu sharcigu noo ogol yahay ee dastuurku noo ogol yahay iyo wixii kale aanu xirfad ku keennaba inaanu kaaga hor iman doono waqtigaa yaree gaabanada haysato ee xisbiguna kuu samraayo inuu taageerayaasheedana gacanta ku hayno annu ka aragno tallaabooyin dhaqdhaqaaqo isbeddel keena oo weliba hay-adaha amniga wax ka qabato oo dadkaa xidhxidhan ee xisbiga loo xidhxidhay ee gobol walba ku jira xorriyaddoodii loo soo celiyo ee kuwaa dhaawacmay iyo kuwaa dhintayba magdhagoodii la siiyo waqti yaroo gaaban baad haysataad wax ku hagaajiso intaanaan annagu shaqadeeda qabsan xisbi mucaarad aanu noqon doonnaa waxaanu u tanaasulnayna waxa weeye inaanu xisbi mucaarada noqonno mucaarid dhaban aanu noqon doonnaa waxba laysu saarifi maayo muusow waxba laysula hadhi maayo aday kugu xidhantahay maanta hadba waxaad yeesho adaa midna daabkeeda haya sacab iyo gelbisa naga sugin haddaad talada la leexato waxaanu ku leenahay tallaabadaa khaldan ee qoladii kaa horraysay ay qabatay ee dadkii xisbiga lagu gaadhsanaya xidhxidhan yihiin mas-uuliyaddaasi aday ku saarantay waananu kuugu eegaynaa waxaad ka qabato tallaabadaad qaadana waannu eegaynaa ballan waxaannu kugu qaadaynaa haddaannu kaa aragno inaad wixii hore xumaa wax ka beddelayso inaannu kula shaqayno haddaannu se kaa aragno inaad sii hore ku soconayso ballan ilaahay waxaynoo ah inaannu hawl intaanu lahayn aanu qabsannay in dheeraadaba wasalaamu calaykum